بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مدن قدومي ومهدسنتهي مدن يالي مروين وأحمد فقي يحلبان كلا هل إلاليو nidaamka hal ilaahay aan isdhegaysano maanta waxaa maqlayay in maxay ahayd xildhibaanada qaar aragtidooda aan aad u kala aragti duwanayn oo ay aad maaragtay ugu celcelinayeen in ay tahay dhinaca ammaanka mas-uuliyad wadare. waxaa wax lala yaaba ah in qof mas-uul ah dantuu doona ama ujeeddaduu doona ha ka lahaado uu ku tilmaamo mas-uuliyaddii dalka mas-uuliyadda cidda ilaahay saari cid aan ahayn in lagu tilmaamo in ay tahay mas-uuliyad wadareed. xitaa wasaaradda kalluunka ka shaqayso iyo tanbiyaha ka shaqayso golaha xukuumaddu anigu ilama ahan dastuuriyan iyo caqliyanba in ay mas-uuliyad wadareed tahay. amniga dalka waxaa mas-uulka ah baarlamaanka, mas-uulka ma ahan shacbiga, mas-uulka ma ahan ururo bulsho kale, mas-uulka ma ahan xukuumadda ayaa mas-uulka ah. sida hadaaye xildhibaanada qaar ay ka dhawaajiyeen awoodooda dastuuriga ah ee xildhibaanada baarlamaanka mas-uuliyadda waa in ay la xisaabtamaan xukuumadda. 2 sano ka hor mashruucii ama barnaamijkii siyaasadeed ee ku saabsanaa dhinac walbo gaar ahaan dhinaca ammaanka wixii ay ka qabatay xukuumadda waad ogtihiin in aysan xataa aysan isu dhigmin cirbad dulkeeda. waxyaabaha isweydiinta mudan waxay tahay wasaaradaha amniga sida wasiirka amniga, wasiirka difaaca kolley waxaa lagu ballamay in la isugu yimaado maalin tabanita ah wasaaradaha ayaga miyaa wasiirka amniga ma isaga ayay hoos tagaan taliyaasha ciidanka booliiska iyo nabad sugidda mise waa taliyaal iska madax bannaan ama qolo ka korayso ay maamusho. waad ogtihiin wasiirka difaaca ciidanka iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isaga miyuu hoos tagaa mise waa ciidan iska madax bannaan. jahwareerka iyo qalalaasaha dalka ku jiro ma ahan mid la inkiri karo. shalayta ciidan booliis iyo ciidan military ah diriray, saaka ilaa hadda dirirtu socotaa oo islaynayaan. ciidan military ah gadooday, wasiirkii difaaca oo jooga ayaa waxaa loo diray wasiirkii warfaafinta iyo kii maxay ahayd amniga oo reer ahaan iyo beel ahaan loogu diray wasiirkii difaaca oo joogo. waa waxyaabaha fadeexaadka ah oo ummaddu ay la yaaban tahay oo mas-uuliyad ahaanna lala yaaban yahay. su-aalaadka meesha alla waxay tahay wasiirka amniga 13kii warqaddii baydhabo uu ka qoray mukhtaar roobow oo uu ku sheegay eedooyin uu soo jeediyey uu ku leeyahay ciidamo ayuu soo geliyey ee musharax madax bannaan ah ilaa hadda uu xiran yahay uusan helin xuquuqdiisii muwaadin xiran ee aan maxkamad la soo saarin ee eheladiisa aanan booqan karin oo maxay ahayd ilaa iyo hadda dembigii uu leeyahay aysan weli soo caddaynin. waxyaabaha isweydiinta u baahan ay noqonaysaa dalka wuxuu ku jiraa jahwareer iyo qalalaase oo aan la xaqiri karin indhahna laga qabsan karin. marka muhiimaddu waxay tahay in siyaasad cad ay la timaado meeshii laga sugaayey in dadka la jahwareeriyo oo la yidhaahdo anugu kolley isaga ayaa jooga wasiirka amniga. wasaaradda amniga waxay soo saartay baa la yidhi daraad anigu waa ka maqnaa baarlamaanka markii kala aragtiduwanaanta xildhibaanadu ay ka dhaceen in qolo qalalaasa doonaysay oo rabtay in ay siyaasaddii amniga iyo sirtii amniga bannaanka la soo dhigo. sir amni oo ay bannaanka baarlamaanka soo dhigayaan ama sir amni oo dalkan ka qarsan ma jira. ciidanka militariga iyo booliiska hadda islaynaya iyo kii shalay islaamay ma sir amniya la qarinaya. haddii la weydiiyo wasiirka halkan la soo taagay kan gaashaandhigga iyo kan amniga bajaajyada iska socdo nin weyn oo xildhibaan ah hadda halkan taagnaa uu lahaa bajaaj baa bamba tuurayay danta uu ka leeyahayna arrintaasi waa saxay xildhibaanka ha gelin
waxyaabaha mucjizaadka ah oo halkan maaragtay falowrka baarlamaanka ka dhacayo waa waxyaabaha maaragtay aad loola yaaban yahay waxa aan maaragtay lagama maarmaan ah in xisaabtanku dad ayaa waxay ka dhawaajinayaan guddi amni iyo guddi difaac ayaa jiro guddiga amniga iyo guddi difaac markii sidaan oo kale loo doodo wixii loo dhiibo dib wax loo soo celiyo halkan la keenay weli lama arag mas-uuliyadda waxaa loo baahan yahay inaysan noqonin mid caatifad ku dhisan mid dhaliil gaara ku dhisan waxaan halkan u taaganahay oon horeyna u taagnaa oo golaha shacabkao dhan ay u taagan yihiin waa ilaalinta danta dalka iyo dadka mar walbo waa waxa annaga dastuurka ugu dhaaranay waa waxa maxay ahaydee goluhu wasuuradu ku dhaarsan yihiin waa waxa madaxweynaha uu ku dhaarsan yahay haddii dee dalkani wuxuu ku dhisan yahay dastuur ayaynu ku wada joognaa haddii dastuurkii la diiday waxay noqonaysaa marka arrintu inay noqoto dagaalkii waraabayaasha cid walba cidday ka adag tahay in ay cunto ah ilma adeerayaalow mas-uuliyad weyn baa idin saaran golaha shacabka waxaa tihiin mumataliintii wakiiliintii shacabka ayaa tihiin waxaa lagama maarmaan ah oo aan la huraynin in aad isha hoos u fiirisaan ood hoos u eegtaan ood isha ku godaan tuulo ilaa iyo gees waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo ilaahay hortiis haddii aakhir zamaanka la gaaro mas-uuliyadda waxaa loo dhiibaa dad mas-uuliyad saaran tahay oo amnigii dalka iyo mas-uuliyaddii dalka ay saaran tahay oo maxay ahayde aad moodid in ay dalalkii ay joogaan iskandinafiyanka oo aan xanuunba ku hayn dadkaan dhimanayo oo aan xanuunba ku hayn ciidamadani mishaarkooda ee xildhibaanada qaaraa ka dhawaajiyey qaarkii booliiska loo raray weli mishaaradoodii may helin qaarkii lagu reebay nabad sugiddana qaarkood mishaar ma helin qolo kaloo laga tegay oo reero jaanana way jiraan qolo reero fiicanna way jiraan waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in miiska lasoo fadhiisto oo lays hor yimaado oo qof iyo shaksi iyo mas-uuliyad walba ciddii ay leedahay la hor keena maalinteeda waxaa la yidhi isxisaabi ka hor inta aanan maaragtay lagu xisaabinin xikmaddii cumar ibnu cabdicasiis waxay ahayd haddii faras uu ku kufo baqhdaad oo dhagax waddada aan ka leexin waayo ugu kufo ilaahay baa maalinta qiyaamana weydiin hadda dadka aan ilaahayna maaragtay aan aqoonsanayn oo iimaanka iyo islaamnimada saadaqa aan ku deganayn dastuurka aan ku xisaabinna dalka haddii kalena waxay noqonaysaa waraabo ka adagya ka argudsado